ilaahay arliga seeray qoloba meelsiiyay saxaraha kuwa uu furay tacabka soo saaray ayaa geed sugsoga baahidiisa ka garan laayay wuxuu jayna buurta u sarcaday waa saduu helay ummad yahay jirdaha seexisay xididada saartay ee sawgu damashu lahaa sidan u moofaysay inta baadku suuq ku yahay siirka gadanayso ee sarab qoyaan iyo mid shidan kala sanacaynayso ee deegaanka soo dabar jaraysa ilada u joogto miyay cayri ka suulaysaa waabad sidatahay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Saciid Ibraahim Dool waxaan ahay madaxa abwaanada iyo jilaaga ee waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waaxdan aan madaxa ka ahay waxay qabataa ama ka shaqeynaa waxay tahay sameynta dhammaan qaybaha suugaanta iyo jilaaga iyo laxamka waxaanu ka qayb qaadanaa wacyigelinta qaranka annagoo kaga qayb qaadanayna hab maadi iyo hab diiniba waxaanu wax kala qabanaa qaranka oo aanu hadda shir ka shaqeynaa munaasabadaha qaranka hadba xaaladda lagu jiro iyo wixii loo baahan yahay ka hadalkeeda waxaanu inta badan u badannahay waa taaliif iyo eray curin ama eray samayn oo ay kamid yihiin gabayadii oo ay kamid yihiin buraanburkii oo ay kamid yihiin jacburkii oo ay kamid tahay jilidii iyo geeraaradii iyo wixii la mid halmaali jiray waxa kale ka qayba laxamada sameyntoodii waxa soo dhan ayaanu ka shaqeynaa de waxaan filayaa shaqada waaxda dhaqanku halkay ka bilaabantaaba in ay tahay marka hore taaliifta dadii sabanku uu kula hadlay waa sidee maqalku sawirada deegaanku dhigay waa sidee aragu su'aalaha dhirtu ku suray waa sidee fahamku adna gudinta soofaysatay waa sidee taladu in dhirtani sareediya nimciye sooriye iyo deeqtay ma kaskeenan baa seeganoo sababta keenaya ma dhibtaan si loo wada arkayn saac kastaba joogta mise subax quraata qarniga siisateen hadhaya ilaahay arliga seeray qoloba meelsiiyay saxaraha kuwa uu furay tacabka soo saaray ayaa geed sugsoga baahidiisa ka garan laayay wuxuu jayna buurta u sarcaday waa saduu helay ummad yahay jirdaha seexisay xididada saartay ee sawgu damashu lahaa sidan u moofaysay inta baadku suuq ku yahay siirka gadanayso ee sarab qoyaan iyo mid shidan kala sanacaynayso ee deegaanka soo dabar jaraysa ilada u joogto miyay cayri ka suulaysaa waabad sidatahay waxaan sokeeyo laga maarmi karin sahayda geedaay salig weeye nooluhu dagu ubadka seexshaay sakhi weeye gaarsi leeydi saaxiib kula noole Soomalhaad abaareed dadku sidata jahaweyntu ruux surmiyay salkiisu biyaha dhacar ka siiyay sabarkuna wuxuu dhoonyadaa midhahay saaraane wuxuu sifa nabadgelyad kaaga yahay boqol siyaaboode satellite-ka meeraha koree sahanka weyn qaaday inkastoo dhul siman soo arku soo xidiga taabtay inaan la'aanto suuraba ahay noloshu soo sheegay sanbabada hawada jiidayay subaga naacawda in sankaaga neefsaday dhirtani saxa ku kaalmayso samad iyo daruurtana inay madarka soo nuugto marna arag sugu saaran yahay saaca iyo dooga marna sara bogsiyaha dawada laga sameeynayo oo cudur wixii saari la saatir ku geliyay saynisyahanka jiita cilmiga laga su'aalay secondarina waa lagu bartaa saraca geedaay in sideena ay nolotay sidii deeq buuxdo in subxaanahu ay leedahay wada sujuudayso minaga satriga taa ku hayn oo la socon geedka mise sabadana inaan lahayn ololku saameeyay marka ay umadisiibatay siirooyada dhaafto sinjigiya abkeeday nacdaa soo jireenka ah dhaqan kalena saarba u qabto way u salashay saawiyadii dareenka iyo hadii aan nabdigu seexan salidkuma ahaateen dhulka saami u lahayde inta aydun kala seerataan lama sukuumeene subax noolba waxaad beeran leey geeda soo baxa